السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan nagala socotaan waa magaalada Hargeysa joognaa bulla iyo ma joogaan garoowe ama mudug ma joogaan laakiin magaalada Hargeysa ay joogaan bulla iyo Sundu Saacid oo garabkayga taagan waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Hargeysa horta magaalada Hargeysa cid kama laha oo magaalo Soomaali degto oo wadankiina weeyaan aad ku soo dhaw aad iyo aad ugu mahadsan tahay soo dhaweynta Hargeysa igu soo dhaweysay adiga umbaad waxdaariir ka maqla ma ogta marka dhammaan reer Hargeysa macna markaan leeyahay dhammaantood weeye baan mahad celinaya aad iyo aad kaaga qaadaysaa ii soo dhaweysay waxa in leeyahay ilma adeerayaal guul iyo gobonimo baga nidaamku soo masaxan aad iyo aad bay mahadsan tahay walaashay bullo waa kuwan waa boqortooyooyinkii waa sandaladii Soomaade waa bulo official iyo Sundu Saacid waxaan caawa ku faraxsanahay walibana ku faraxsanahay adkee ku faraxsanahay biyaad u baahan wallahi san kaliya lab waxaan caawa ku faraxsanahay walaashay bulo official iyo Sundu Saacid inaan maanta isla caawa isla imikada ay la joogaan magaalada Hargeysa ilmaada reeyalo hal mar halo saabeey horta bal abay agaasimi marna ah musharaxa madaxweynaha golaha dhaartun baa u dhiman waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne ana agteeda madaxweynaha ka tahay mudane madaxweyne ku soo dhawow magaalada Hargeysa magaalada aad ka timid iyo magaaladadanba adun baa u taliya garanaysa madaxweyne xukuumaddu waa xukuumadaadii annagu ciidankaagii baanu nahay soo maad fahmin marka ani agteeda horaan kugu sheegay idinka waxba igama kiingali mudane madaxweyne ku soo dhawow waxaan la hadlayaa wasiirkiisa soo sharaxi doona insha Allah adigina waxaan ku rajaynayaa inay bulo ku soo saari doonto amar bay magana ku rajinay kulli horaan hadlo waxa laga yaabaa dad halkan ay boobay markan hadlee oo hadalka igu qabsadee aan wax kala oran maayo intaydan xishoodku idin ka been bal horta wax yar nadha ma ka gaarsiinna hadda toolaha hadii kale waxay oranayaan hadallada u furfurmi marka waa laga gaarsiiyaa qofka Sundu si aad u hadalku ayaa aad noqoteen horta run baa fiican waa sida ninkaas u sheegay hadalku i qabtaa hadaan waan ragtay iga daadayna waxaan ka hori xanuun bay igu noqonayaa farxad bay ii tahay inaan Hargeysa joogo waliba asxaabtaydan garowe isku soo aragnay ay caaway waxaan ku hori surprise noo diyaariyeen asxaabtu mahad celin iskuma laha baa la yiri laakiin aad baa mahadsantiin way isgalay marka farxad bay ii tahay mana ahan markii igu horeysay waa bulo qofka markii ugu horeysay Hargeysa yimaada asxaabtaydan gaarka iyo asxaabta guud baa aad baan salaam iyo aad baan mahadsantiin baan leeyahay kala anu hadalkayga ma dhamaanayo iska wareejinaya horta aad waxaan ugu faraxsanahay walaalahay Sundu Saacid iyo bulo ku soo dhawaad Hargeysa idinka xigna daydi kale ma garateen buloy anagu de halka TikTok laftarkiisana ma aragtay waani ku doortay xilka ku magacaabay ra'iisul wasaaruhu baa ka doonaya inaad siisid ma garatay marka madaxweynuhu faruuq hadlaa kulli tiimku badan yahay asxaabtu way badan tahay asxaab kala badan oo fadhida marka waxaan leeyahay walaal ku soo dhawaad Hargeysa waa hoygii fanka hoygii martida deed kama xigno marka war waxa la dhahay maanta aan horta waxaan fartiga Sundu waxa aad ugu faraxsanahay asxaabtaydii aan waxaan ku in badan halka waa inaan Puntland ahayn ka soo fuqi waayba in iyaguna waxaan doonayaa magaalada Hargeysa saaxiib maalinta iga tagay
saaxiib waxaan ku riday inay iga tagi waayeen baan aad horta waxaan aad ugu faraxsanahay inay walaalahay maanta magaalada Hargeysa ila joogaan waxaan idin leeyahay million times welcome to Hargeysa sisters aad iyo aad u mahadsantiin ilma adeerayaal meel walba aad joogtaan haddaa Hargeysa joogtaan iyo haddii ilaahay idinkeeda leeyahay haddaa meel kale joogtaanba magaalo walba dadkeeda quruxsada magaalo ma ahaan lahayn haddayse dadku aysan dad qalbi wanaagsan aysa ahaadeen waxaanu leeyahay intaan maanta haddii ilaahay idinkeeda leeyahay intaan kaliya kaamiradu haysa maaha dadku way ka fara badan yihiin wayna wada taagan yihiin waxaana la socotay oon tiimka ma maqlayn marka saa loo eego waxa la soo odhanayaa meeday qofaa la tabaya Selma oo naga xanuunsan oon jeclay oon jeclaysanay inaan ka maqnaan laakiin meesha way joogtaa laakiin kamarada aad u weyn kaamirada kaliya ka maqan tahay aad iyo aad ugu mahad celinaya meeshan quruxda badan leh aad u weyn aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaantiin anigoo hal iyo laba dhahaynin reer Hargeysa aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaad cadaynaysiin inaad magaaladiinni ay tahay loogadiinni ay tahay haddii ilaahay idinkeeda leeyahay ilma adeerayaalow dadka miyi iyo magaalo ka yimaado inaysan inii kala socnayn macnaha anigu waxaan isleeyahay xoogaa miyigaasaa ka timido xoogaa ama haddii magaalada mataqaano in lagu yidhaha gacantaaba laysii wadaaba halkan waa dukaankii kan waa kan waa masallihii kan waa kan aad iyo aad ugu mahadsantihiin inaad haddii ilaahay idinkeeda leeyahay miyi iyo magaalo qofka yimaadaba aad soo dhaweynaysiin reer Hargeysa gobaad tihiin waxaa idin leeyahay guul iyo gobonimo aad iyo aad imikana waxaan u kala bixi doonaa dhammaan tiimka kale ee soo istaagay marka anagu waxaan idin leenahay dee horta soo dhaweyntiina ka goyoon mayno laakiin madaxweynaha inta ayaan ka badan labadoodu iska taagnaanayaan laakiin asxaabta kale ku soo dhawaan doonta anagu mashrax aan banayn doonaa waxoogaa dad ba meeshii oo ku xiriirsano ka qaadnay laakiin jaaniskooda leeyahay waxaan leeyahay walaaladay Bullo iyo Sundu Saacid minkiini waayo walaalaha marku gurigiini waaye ku soo dhawaada magaalada Hargeysa ciidid kama laha idinka leh sadantan bad ugu galgalanaysaane waana ku faraxsanahay maanta inaad noogu soo booqataan magaalada Hargeysa oo aad nala joogtaan minkiini waayo marka la dadka saxda ah kuwana dadka saxda ah waa kuwan minkoodi waa kuwan laakiin gurigiina ha ku dhawaado mar labaad mar saddexaad maxay taa ku dhawaado lamada marba suuqa dadka ha ku dhawaaya ana magaalada gurigiini waaye ku soo dhawaada baan leeyahay gurigiina Sundus iyo Bulloba dhammaan asxaabta waan salaam meel badweynaha ku joogtiin caaw waxa ii farxata anoo ku soo dhaweynay Hargeysa walaalayga Bullo iyo Sundus waxaan leeyahay ku soo dhawaada Hargeysa maninkii waan ismarteynana ku soo dhawaada gacmo furan السلام عليكم بان لي هرتا انا ممكن سو غلاي دي سلام marka waa waajib سواج مارت انا ودي سواج ما عادي waan ka xumaynan dhahay dadka martidaana afku afciliyo laga yar qurux badan yahay horta Bullo iyo maxay walaashay Saacid waxaan dilay marka koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar tobnaadba ku soo dhawaadaan leena Soomaaliland si kaliya laabadii soo dhaweynaa qalbi furan marka labaadna waxaan leenahay martimitidina magaaladiina waa joogtaan hadalka isku badin maayo maanta dhamaan xiqsanay waxaan leenahay ku soo dhawaada kaliya laab assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta caawa xaflad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay walaal soo dhaweynta xafladan caawa inaad Hargeysa noogu timaadaan in badanna waan rajaynaynay inkastoo aan hadal badan aan caawa karin oo yara xanuunsanay waxaan idinku leeyahay Bullo iyo Sundus welcome to Hargeysa magaaladu waa magaaladiina leedin kama xigo ku soo dhawaada baan leeyahay walaashay halkii joogo walaashay Bullo official walaashay Bullo iyo walaashay Sundus Saacid aad baan soo dhaweynayaa dad badan oo asxaab badan oo iga horeysay soo dhaweysay asxaab badan oo harsan tahay soo dhaweyn intan ka qiimo badan walaal wad u qalantaan in la idinku soo dhaweeyo ilaahay inta sharfo Hargeysa idin kama xigto idinka leh ka soo qaaday idinkoo garowga jooga aad iyo aad ilaahay inta sharfo walaal markaa kulli hadal badan ma buuxshe soo dhawaado walaal maanta waxaan soo dhaweynayaa ma sha Allah hablahayga waan soo dhaweynayaa halkan madaxweynahayga maray maanta madaxweyne intaan soo dhaweyn su'aal qulan ku weydiinaya haddii lacala xilkaad qabato maxaad dooran lahayd maadiga maxaad ku fiican tahay dewaasa maxaad garan lahayd adigu aniga waxaan ku garan lahaa haddii ilaahay idinkeeda leeyahay musaaraca wadanka in laga abuuro macnaha dibir macnaha
arcay ugu soo kordhiyo kida le wadanka ما شاء الله ما شاء الله waxaan walaal qaali soo dhawaada walaashay bullo iyo walaashay sundus waxaan leeyahay wiilkoom magaaladiini cid kama laha de kulli hore iyo dib si walba uga bax marka aad iyo aad baan soo dhaweynaya intaasna kaftayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan maanta halkan garab taagan soo arkaysaan dad aad iyo aad u qaaliya dad ugu weyn kolley inaan soo dhaweyno ma doonno waayo magaalada iyagana allah magaalada iyaga iskale maadaabay laakiin meel kale ka yimaadeen khasab bay nagu tay intaa ka bacdi waxaan idiin sheegayaa siyaro kadiisa inoogu yimaadeen waxaan jeclayn inaan kaga hortagno ilaa iyo sheekh laakiin waad iga soo degdegteen imkana caasimad aada u yar baan u fidinay kolley dee dad intan iyo in ka badan aan soo dhaweyn lahaan bay ahayd inta yar maanta hoos yaraa maamulnay waxaan leenahay soo dhawaada kun jeer soo dhawaada walaashay Sundus Saacid iyo bullo ku soo dhawaada kolley dad badan baa iga dambeeya hadalka aan siin doonaa kusoo dhawo muulidada waa tahay ayaan le saaxiibkay aad baa u mahadsan tahay waxaan jeclahay caawa inaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan soo dhaweeyo walaashay Sundus Saacid iyo bullo official madaxweynaha imika la doortay oo xilal badan looga fadhiyo waxay leeyahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baa minkiina waa la oran jiray soo dhawaada waa leeyahay gacmo furan qalbi furan horta waxa la yiri waan haray looma hadlo waxaan horta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo muuqdo soo dhaweynta walaalahay bullo official iyo Sundus Saacid waxaan leeyahay walaal intan iyo in ka badan ba waad u qalantaan in soo dhaweeyo aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay inaad agteeda ka soo muuqataan de magaaladuna waa magaaladiinii waad xayaad kartaa Charakega chara wada chara idinkoo isjecel wada chara chara ku chara gacmo wada jira ku chara kalgacayl ku chara wada chara charakega chara charakega wada chara charakega chara wada chara idinkoo isjecel wada chara chara ku chara gacmo wada jira ku chara kalgacayl ku chara wada chara charakega chara charakega wada chara عشق جيفا جيفا لابها كجحاسن مانكو charakega chara wada chara charakega chara wada chara charakega chara charakega wada chara عشق جيفا لابها كجحاسن مانكو charakega chara wada chara charakega chara wada chara charakega chara charakega waxaan jeclayn horta maxamed deex mikrofoonka laga horeysiyo waayo aad buu hadal jecel yahay maxamed deex
ku soo dhawaada hablaha yagii ma garanaysaa maya halkaas dhul ku dhufta cuntada xitaa kama muuqanayso ilmaha caawa halkan waxaan joognay madal aad u qurux badan aan ku soo dhaweynayna walaashay Sundus iyo walaashay Bullo madashii waxay noogu soo gabagooday sidaan aad arkaysaan hablaha ay noo faraxsan yihiin la joogaan inta in ka badan inay la soo joogaan man jeclaan lahayn qaali bal horta channeladeeda maxaa la dadkana maxaa la aad baan ugu faraxsanahay horta inaan ka soo muuqdo channeladan kala duwan caawa farxad bay ii tahay asxaaban kor kala socday inaan la kulmo isla mar ahaantaana kula kulmo caasimadda Soomaaliland Hargeysa mana ahna hore waan u sheegay markii ugu horeysay laakiin waxa farxadii ah markii hore niman jiray haddana isku ka mid ahayn wajiyada quruxda badan na soo dhaweeyeen horta anigu farxad bay ii tahay anaguna inaan mar kasta idin jecelno aad iyo aad adigu waxaad jiranaysaa ku garanayaa marka farxad bay ii tahay waliba inantan sawiranta xaysanaya dhirin ana caawa waxaan leeyahay waxaan leeyahay anoo wax cunaya iga qaad mar kale anoo sharaab cabi iga qaad aad iyo aad marka farxad bay ii tahay wallaahi insha allah waana jeclaanaya inaan mar walba kasoo muuqdo ma ahaan doonto markii igu dambeysay waxay noqonaysaa markii marka farxad bay ii tahay asxaabta waan salaamay kama foqayo ma iidisid walaashay Sundus aad baad maasan tahay waxa weeyaan yar aad farxsan oo maan taageero markasta aan ku xidhanahay barnaamijka dayax waan u dhiibayaa soo gabagabay aad iyo aad baad u mahadsantihiin maadaama na daawatay ninka soonan keega cuni karin way dilayaan say soo wada eegayaan maan arkayaa ma garanaysaa marka vaya vaya landeranimo min afar lagu daxay ku jira asxaabta qaaliga afar sokol baan wataa koobdha ninkii helaya afar sokol kaliya la marka asxaabta qaaliga waxaad ilaahay intii reedaha naga ilaawine haddaad ilowdaan isa soo maamulo dib ugu soo noqdo garanaysa sharaf isku yaala la idin tilmaamayo marka inta muuqaalka xiga ku kulmi doono waxaad kaga tagnaa sida iyo